الله نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. الحمد لله رب العالمين. waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta caalamka ku nool oo dhan salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saad ujeedaanba waxaan joognaa xafiiskii shirkadda Imara Luxury Homes. shirkaddu waxay si habsami leh u wadaa mashaariic kala duwan ayay si habsami leh u wadaa. waxaan rabaa inaan idinka qanciyo oo idinka dhajiyo idin faahfaahiyo si tafatiran aan idinku sheego shirkaddu waxay dhisayso si adiga oo yaqaana oo waxay dhisayso ka dharagsan aad noo soo wacdo. yaan rabaa inaan idin magaranaysaa bayaaniyo ama idin baahiyo. shirkaddu waxay si habsami leh u wadaa mashaariic ay ka wado xaafadda Backland, xaafadda magaranaysaa Kilimani iyo mashaariic kale oo hadda ay ka bilaabayso magaalada Mombasa, magaalada xaafadda Mombasa, xaafadda Nyali Beach iyadana ay ka bilaabayso. mashaariicahaas oo dhan waxaa si habsami leh u wada shirkadda Imara Luxury Homes. waxaan ku horeynaynaa awalan guriga Backland ee la dhaho The View. gurigaasaan kolka u horeysa idinka qabtiri, kadibna waxaan idinka qabtiri doonaa guriga la dhaho Imara Heights ee xaafadda Kilimani wadadan Daily Street. gurigaas Backland haddaan ku horeeyo, guriga magaciisa waxaa la dhahaa The View oo sidaa idin muuqataa halkaa idinka muuqataa. gurigaas The View la dhaho wuxuu kala magac baxay, wuxuu haystaa view fiican oo dhir leh, wuxuu haystaa forestigi ayuu kusii jeedaa. gurigaasi wuxuu ka kooban yahay dhisma ahaantiisa guryaha uu ka kooban yahay wuxuu ka bilaabanayaa 2 qol iyo qolka shaqaalaha. waxa uu leeyahay 3 qol iyo qolka shaqaalaha, 4 qol iyo qolka shaqaalaha. wuxuu leeyahay duplex oo guri 5 qol oo isku saara. wuxuu leeyahay gurigaasi penthouse, guri weyn oo penthouse oo waafi ah buu leeyahay. guriga 2 qol iyo qolka shaqaalaha ku leeyahay. waxaan rabaa adiga oo wax walba haysta oo ka dharagsan inaad soo weydiiso qiimaha aan qadayno. gurigaasi waxa uu leeyahay deskigiisu uu leeyahay adeega si guud dabaq uu la wadaagaya. wuxuu ka gurigaasi dhisma ahaan cabir ahaan waa 2 qol 120 mitir square way. waa 120 mitir square. 3 nooc buu iskugu jiraa. waa 2 bedroom, 3 bedroom iyo 4 bedroom. duplexka iyo penthouse way ka duwan yihiin oo guri aad waafi u ah. gurigan waxaan ka hadlaynaa The View ee Backland ku yaalla way. gurigan 3 qol ah 3 bedroom plus deskigu oo fadhigii iyo qadadiina leh, jikadiina leh oo qalabaysan leh, adeegii dabaashi iyo mashiinadii iyo swimming poolkii iyo gymkii, goobihii jimicsiga, goobihii murqaha lagu dhisay, wixii oo dhan, masaajidii, goobihii cibaadadka, madaaristii, intaas oo dhan wuxuu la wadaagaa buildingka. generatorkii, CC camera 24 saaca, liftiyo 4 intaas waa leeyahay. guriga 3 qol 3 bedroom plus deskigiisu cabir ahaanta uu ku fadhiyo waa 183 square meter. guriga 4 qol ana waa 250 mitir square. guriga duplexka ah ee 5 qol ah isdulsaarkii, gurigaasi waxa uu cabir ahaan ku fadhiyaa dhul dhan 320 saddexda qaybood buu ka kooban yahay. intaa waxaa dheer penthouse oo guriga u koreeyo, guri aad waafi u ah. gurigaasi cabir aad iyo aad u ballaaran buu ku fadhiyaa. gurigaasi cabirka uu ku fadhiyo waxa weeyaan penthouse-ka 650 mitir square feet. waa guriga aad u ballaaran weeye. waa guri goobtii cagaarka leh, goobta carruurta ku ciyaarayeen leh, magaranaysaa jimicsigii leh, wax walba gurigaas wuu dhammaystiran yahay. 650 mitir square feet weeyaan. waa guri aad u ballaaran. guri walbana qiimihiisa un baan noogu dhufa, cabirkiisa un baan qiimihiisa ugu dhufanaynaa. waxaan rajaynayaa inaad ku qanci doontaan. gurigaasi xaafadda uu ku yaalla waa Backland, wadada uu ku yaalla waa City Park Drive, 6th Avenue. gurigaas wax walba oo macluumaadkiisa waxaan filayaa inaad adigoo ka dharagsan aadna soo wici doonto. anigoo Nuur Xaaji aan qiimo dhimis fiican idin siin doono iyo adeeg ku filan insha Allah. guriga kale ee Imara Heights wuxuu ku yaallaa xaafadda Kilimani, Elegam State House-ka wadadan Daily Street. wuxuu ka soo horjeedaa idaacadda weyn ee Citizen buu ka soo horjeedaa.
gurigaasi sidaas oo kale adeegyada way kala siman yihiin gurigaasi waa corner block laba jid buu haystaa madaxtooyada taqriiban ruuxa ka soo dhaqaaqa 4 mitir 4 daqiiqo ayuu kala soconayaa lugta 4 daqiiqo 4 minutes buu kala soconayaa gurigaas haddaan ka qabtiro oo cabirkiisa balciisa meesha ku yaalo adeegyadiisa servicekiisa wax walba aan ka qabtiro gurigaasi labadiisa qol 4 qaybood buu ka kooban yahay marka labada qol 2 bedroom wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood buu ka kooban yahay waa cabir ahaan aan isla socono 2 bedroom wuxuu ka kooban yahay 102 meter square 106 meter square 108 meter square 120 meter square adiga kolba kay ka anfacaya qiimahana way kala duwan yihiin qiimo dhimis baan kugu siinayna insha Allah cabirka ay u kala duwan yihiin qiimihiisuna u kala duwan yihiin باذن الله الكريم sidoo kale guriga saddexda qol 3 bedroom plus rescue fadhigi iyo jikadii iyo qeydii inta uu leeyahay cabirka uu ku fadhiyo adigu kala dooran doonto باذن الله الكريم dad guri waafi rabto dad guri dhaxaw rabto dad qiimo dhimista rabto wuxuu ka kooban yahay 156 meter square 170 meter square 190 meter square saddexda qaybood uu ka kooban yahay waa 3 bedroom plus rescue waxaan rabaa inaad ka jaahil baxdo adigoo ka qanacsan aad nala soo xidhiidho kaliya u baahan meesha aad wax ku soo diri lahayd iyo qiimaha aad soo diri lahayd guriga 4 qol ah waa Imara Heights guriga aan ku dhex jirro labadiisa qol iyo saddexdiisa qol iyo afartiisa qol gurigaas afartiisa qol wuxuu ka kooban yahay laba qaybood horta fadhigi iyo jikada iyo qeydii uu leeyahay adeeg asaasiga oo dhan wuxuu la wadaagaa kuwa kale gurigaas afartiisa qol wuxuu ka kooban yahay cabirka ku fadhiyo 238 255 labada qaybood uu leeyahay asagana ma garanaysaa qiimihiisuna saas ay u kala duwanaan doonaan باذن الله الكريم inta waxa noo dheer gurigii ma garanaysaa duplexka 300 duplexka 310 320 330 intaaba isna waad ka helaysaa باذن الله الكريم penthouse kina waad ka helaysaa waxaan filayaa in aad ka qanci doontaan aad ka dhirgi doontaan aad ka baahi bixi doontaan cid walba baahi guri hayso gurigaas marka kaliya aad u baahnaan doonto inaad daado nuu xaajiyo lacagta xagee ku soo diraa qiimaheyn soo diraa oo kaliya waxaan idin sheegayaa in ay jirto bishan aan ku jirro iyo bisha ku xigta qiimo dhimis iyo adeeg hufan iyo aaminaad intaba aad heli doontaan باذن الله الكريم hamoogaanina cid walba baahi guri hayso waxaan rabaa inaan u sheego inay shirkadda Imara Luxury Homes si habsami leh u wado mashaariicdaas qiimaha badan iyo guryaha qiimaha badan ku soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh